السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسر دوادا برامجك فلقينتا عيارها waxaan ku eegaynaa kulan xalay dhexmaray kooxaha Aston Villa iyo kooxda Liverpool iyo kulamada kale ee ciyaari doona caawa kooxda Liverpool ayaa 2-0 kaga badisay kooxda Aston Villa iyadoo lagu ciyaarayay guriga kooxda Aston Villa ayaa daqiiqadii saddexaad waqti dheer kumaysan qaadan kooxda Aston Villa inay ka dhaliso kooxda kubadda cagta ee Liverpool goolka koowaad ee ciyaarta kooxda Aston Villa ayaa daqiiqadii saddexaad markii mareysay dhalisay goolka ugu horeeyay ciyaarta wuxuu dhaliyay Douglas Luiz halka kooxda Liverpool muddo daqiiqada 3 daqiiqo gudaheed ay ku soo bareejaysay in ciyaarta ka dhigto 1-1 kooxda Liverpool ayaa waxa goolka u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Matip kaasoo daafaca kaga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool kambida hore ayaa lagu kala maray 1-1 ciyaartu u muuqatay ciyaar mid aad u adag Liverpool kama aysan bixi karin inay kooxda kubadda cagta Aston Villa ay aad u weerarto sababtoo ah si ay u raadiso goolal badan waayo waxaa la xasuustaa hadda ka hor kulan ay la ciyaareen Crystal Palace ay 3-3 la galeen ayagoo 3 gool leh baa 3 laga daba keenay kooxda Liverpool 2014 haddaan qaldanayn 2014 waxaan isleeyahay inay ahayd sanadkaas ay kooxda Man City horyaalka qaaday Liverpool ayadoo raadinaysa goolal badan inay dhaliso ayaa waxa dhacday in kooxda kubadda cagta Crystal Palace ka daba keentay 3 gool Liverpool ayadoo taas maskaxda ku hayso ciyaarta qaybta ma la isku noqday Sadio Mane ayaa 65 daqiiqo markii mareysay ciyaarta u dhaliyay goolka guusha ciyaarta ayaa sidaa ku soo ilaatay 2-2 Sadio Mane ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool markaynu eegno kala horeynta horyaalka Premier League kooxda Liverpool ayaa ku dhibcaha kooxda kubadda cagta ee Man City ayagoo min 86 dhibcood leh sida halkan ka aragtaan Man City ayaa weli hoggaanka haysa ayadoo weli hal kulan u harsan yahay Man City ayaa 86 dhibcood Liverpool 86 dhibcood Man City ayaa 3 gool dheer kooxda kubadda cagta ee Liverpool marka la eego goal difference Liverpool inay horyaalka qaado waxay u baahan tahay kooxda Man City in laga badiyo kaliya maahan in goolal badan laga dhaliyo sidoo kale Liverpool waxay u baahan tahay in kulamada u harsan badiso goolal fiican ay dhaliso haddii ay noqonayso goal difference inay ku qaado kooxda Liverpool balse horyaalka ayaa u sii janjeersanaya kooxda kubadda cagta ee Man City maadaama kulamada ay ka harsan yihiin kulamada kaas horyaalka aad u yar yihiin Man City ayaa u safri doonta Wolves kun caawa dhici doona kooxda Liverpool taageerayaasheedana waxa uu maleynayaa gabarkooda inuu diyaar yahay ay isku halay doonaan kooxda Wolves balse misleedahay Wolves way qaban kartaa kooxda Man City oo aad u careysan markii Champions League laga soo reebay kana soo reebtay kooxda Real Madrid waxaana sugnaa waa kulanka caawa kooxda Wolves dhexmari doona kooxda Man City haddii uu wax ka bedeli karo horyaalka kooxdii qaadi lahayd sanadkan 2022 fadlan subscribe saar channelka lana soco barnaamijyada kale ee aan soo gudbi doono anagoona ka hadli doono kulamada horyaalka video xiga anagoo ka hadli doono kulamada soo socda horyaalka iyo sidoo kale video kale aan ka hadli doono maadaama uu leeyahay suuqa iibsiga oo sanadkan kooxaha aad ay isku hubay doonaan si ay isku diyaariyaan sanad soo socota waa mahadsantihiin daawashada barnaamijka